السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسروا أفن أكاديمي. sida wada ognahay waxaan bilaabnay course-kii ahaa Basic of Computer. waxaana soo qaadanay markaa 4 cashir oo ka mid ah course-kaas. cashirkan waa cashirkii shanaad ee koorsada. marka cashirkan waxaan ku qaadan doonaa toolskii inoo dhibnaa. haddaan soo qaadan markaa cashiradii hore aan soo qaadanay, isku day inaad soo qaadato, sababtoo ah knowledge aan qaadi karto markaa hadda casharada aad soo qaadan. haddii imaado halkan kadibna aan ku dhaho right click, waxaan soo sharaxnay itemyadan ugu horeeya iyo waxyaalaha ay qabtaan. waxaan marayna markaa itemka new. maanta waxaan baranaynaa sida aan abuuran karo markaa folder cusub. markaan new muska aan dulgeeyo, laga yaabo adiga inuu labadan kaliya uu kusoo saaro markaa waxyaalaha kale uu kusoo saarin, sababtoo ah waxyaalaha kale software markaa aniga adeegsanayo. marka softwarada aad soo degsatid inuu kuu shaqeeyo waa laga yaabaa. waan arki doonaa casharadii soo socda sida softwarada loo soo dejiyo iyo sida markaa laptopkaaga aad ugu shuban kartid. marka haddaan imaado itemka ah new, kadib aan ka doorto folder, sidaa arkaysid wuxuu abuuraya markaa folder cusub. wuxuu ku leeyahay markaa folderkaaga magac u baxso. waxaan ku qoranayaa folderkayga aniga markaa below. waxaan sameeyay markaa folder ay ku qoran tahay below. sidaa arkaysid markaa folderka below hadda waa mid faaruq ah oo waxba kuma jira. marka waxaan samaystay folder lagu magacaabo below. hadhow markaa adiga video dag oo yacni inaad ku shubtid arabtid folderkan, halkan waxaa ku qoranaysaa markaa video, kadibna waxaa ku shubanaysaa videoyaasha aad rabto. sidee marka folderkayga aan wax ugu shubi karaa, folderka aan sameeyey dhexdiisii sidee wax usoo gelin karaa. waxaa isticmaali kartaa wadadii hore ee ahaa copy iyo paste, oo inaad markaa fileka aad rabto aad dul tagto, right click aad ku dhahdo, kadib copy aad soo dhahdo, kadib aad imaado markaa filekan aad soo furto asna, kadib aad halkan right click ku dhahdo, kadibna aad markaa paste ku dhahdo. sida arkaysta wuu soo gelinaya markaa filekaaga halkaa. sidoo kale waxaa jira wax lagu magacaabo drag and drop. markuu filekaaga halkan ku yaalo, folderka ku shubi rabtidna halkan uu ku yaalo, waxaad samayn kartaa drag and drop. muska ayaa waxaad dulgeynaysaa markaa fileka aad rabto inaad soo qaado, kadib waxaa qabanaysaa left click. masii daynaysa left clicka, waa haynaysaa oo markaa sida usoo wadid filekii halkan ayaa markaa move ku leedahay oo halka ayuu galayaa. wuxuu ku leeyahay marka filekan meeshaan ku shubay oo hadda ka hor ayaan ku shubay, marka replacement ku leeyahay ama skip ayaan ku leeyahay, oo asu midkaa ku jiro skip ayaa iska leeyahay this file, ama replace ku leeyahay oo midka ayuu ku bedelayaa. marka dooqaaga adiga ayaa markaa hadhow sidaa marka ayaa u samayn kartaa in folderkaaga markaa shay ay geysid. marka cashirkeeni waxaan raacinaynaa sida wax loo deleedo iyo markaa waxa deleedo halka ay aadayaan. deleeditaanka sheeyaha laba ay kala yihiin. mid waa mid aad deleedaysid file, midka fileka aad deleedaysid kaliya waxaa u baahan tahay inaad isticmaasho markaa delete. laakiin waxaa jiro marka software aad deleedaysid inaad dhahdo install. waxaa la mid tahay teleefankaaga gacanta adigoo haysatid oo rabtid inaad sawir aad deleedid. sawirka markaad deleedaysid waxaad galaysaa gallerygaaga, kadib waxaad leedahay kaliya delete. waxaa jira markaa recycle bin, sidoo kale laptopka ama computerkana wuu leeyahay markaa recycle bin. recycle bin sida wax loo soo celina waa arkaynaa. markaa sawirka sida ay u delete kartaa oo teleefanka markaa. sidoo kale waxaa jiro in application aad teleefankaaga ka deleedid markaa rabtid in aad baxdo aad aadid banaanka ama meesha uu applicationada ku yaalo, kadibna applicationka aad riixdo, kadibna aad install lahdo. marka laptopka sidaa oo kale wuxuu leeyahay install iyo markaa delete. install markaa sidaa loo sameeyo waa arkaynaa, sidoo kale waa arkaynaa markaa sida delete loo sameeyo. marka haddaan imaado folderkii below, waxaan rabaa folderka below inaad deleedo. sida u deleedi karaa folderka below, waxaad deleedi kartaa qaabo kala duwan. inaad isticmaasho markaa numberka gaaban ee shortcutka, marka inaad isticmaasho in muski aad ka dhaqaajiso. waxaan ka hormaraynaa anagoo muska ka dhaqaajinayno. waxaan aadayaa folderka lagu magacaabo below, kadib dushiisa waxaan ku leeyahay markaa right click. marka folderkii right click aan ku dhaho, sida arkaysa faahfaahinadii hore ay soo baxayo. marka faahfaahinadan ayaa waxaan ka dhex raadinayaa item uu ku qoran yahay markaa delete. waa kan itemkan. marka itemkan aan delete taabto wuu baxayaa markaa sida arkaysid. markuu baxo halkan ayaa arkaysaa isbedel ayaa ka dareemaysaa, oo halkan haday wuxuu ahaa caag maran, laakiin hadda wuxuu ku leeyahay qashin ayaa ku jira marka halkan, oo caagii iconkiisa wuu isbedelayaa. marka iconka recycle bin wuu isbedelayaa. marka hadaan recycle binkayga click aan ku siiyo ama aan soo furo recycle binkayga, recycle binka markaan soo furo sida arkaysid marka halkan waxaa ku jiro folderkii ahaa below oo wuxuu soo galay recycle bin. marka waxaan rabaa recycle binka xitaa inaan ka bixiyo oo marka asiga dhan dib loo arkin. waxaan arkaynaa marka sida kale wax loo deleedo waa inaad isticmaasho shortcut. marka waxaan rabaa recycle bin inaad ka deleedo oo marka asiga dhan aan iska deleedo oo laptopkayga aan ka bixiyo. marka folderkii ayaan highlight gareynayaa,
markaa highlight gareeyo waxaa laptopkayga ama computerkayga keyboardkiisa ka raadinayaa button ay ku qoran tahay markaa delete. Markaa shid buttonka delete si direct ah u taabanaysaa, kadib wuxuu ku leeyahay markaa ma rabtaa inaad folderka deleted, kadib waxaad leedahay yes waa deleedaya folderka. sidaas ayuu markaa folderkii uu banaanka ku aadayaa. oo waxaan taabanayaa buttonka delete ama file markaa ama waxaan isticmaali karaa qaab kale oo ah in filekii aan dul tago right click aan ku dhaho, kadib markaa aan ka doorto itemkii ahaa delete. markaa aan soo gudbo markaa cashirkeeni recycle bin wax aan geliyay sida markaa dib u soo ceshan karaa. tusaale recycle bin wax aan gelin ayaa sameynaynaa. hadda waxaan sameynaynaa folder ayaa sameynaynaa. folderka ayaa markaa deleedeynaa. qaab kale ayaa deleedi kartaa oo ah in drag and drop aad ku sameyso deleedka naftirkiisii. tusaale oo kale recycle bin halkaan ayuu yaala, folderkana halkaan. waxaan rabaa marka anoo shortcutna aan isticmaalin oo markaa aan isticmaalo wadadan dheer ee deletekana in aan filekan deleedo oo markaa recycle binka aan geliyo. waxaad isticmaalaysaa wadadii ahaa markaa drag and drop oo filekii inaad dul tagto ayaa wax qabanaysaa markaa left click ama qaybta bidix ee muuska. adigoo weli haysid qaybta ayaa markaa qaadaysaa filekii oo muuska ay dhaqaajinaysaa, kadibna halkaan waxaad ku leedahay move to recycle bin. sidaa ayuu ku deleedma markaa wuxuu galay recycle binka. marka waxaan rabaa fileka aan hadda deleeday inaad dib usoo ceshto. sidaad dib ugu soo ceshto waxaan sameynayaa markaa in aan taabto right click, kadibna markaa aan dhaho restore oo filekayga dib igu soo celi. sida arkiisa markaa filekii dib ayuu soo noqonaya. cashirkeeni maanta inta ayaan ka keenaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. subxaanaka allahumma وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.